الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله وحواياهن آد صبتي أو مجتمعين كسو بضني جرائمتا يدنبيض فوشح ويكمتا يدلك معنى الآنتا يسي جماعي ضدك إن الله لايو مد قرحية مد قبيالة كدلة مد مقعد دينيت كبابية فروجتي عرضكي يا الشرفكي لغو حد قدبه دمركي حوق لغو كفصده وهدنا الديلو اللي خارجيو هدنا كالروني قبله يريركا يا عرورته aan qaan gaadhin aan xamili karin ba in hadaf laga dhigto wa falxumo wa arin ugub ah wa waxina aqoon jirin wa wax cusub oo aad u falx in jariimadii hadana inta lagu sameeyo gabadha hadana la duubo haddana baraha bulshada ku kulunta lagu soo tuuro faaxisho intee leeg waay in la dilo oo laga takhaluso imise dambiyo isa saaran waay waxay u baahan tahay arrimaha noocan oo kale markay dhacaan in asbaabtooda la baadho xal rasmiyana loo raadiyo وانا ميد اللي سويدينه ويمحاو حن حل نقون كري ان نبا ميل لا aadayo midba darbi la fuulayo midba taxliil muayana ka bixinayo xaqiiqadu se waxay tahay xalku wuxuu ku jira alihi adoomadan abuurtay kooda wanaagsan iyo kooda xunna yaqaanay waxay ka sameeysan yihiin garanaya sida ay u fikirayaan garanaya qalbigoodana yaqaandhi iyo noocay u qaybsamaan allahaasi tabaaraka wa tacaala shuruucdu ka dajiyay bas baa lagu afjari karaa wixii ka soo haray waa kuday oo aan natiijo lahayn waa ummadda muslimka ah waxaa loo baahan yahay inay u qirooto oo ay ka masayrto oo ay ka xumaato cirdigeeda iyo sharafkeeda in dib loo geysto cirdigu waa masuun cirdiga furuujta dumarka xubnaha taranka waa arin aad shariicadu u ilaalisay ilaa nabigeenu yiraahdo salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ninkii ku yimaado oo reerkaaga ku socda dil hadaa disho waa ahlu naar haduu ku dilana ahlu jannata ilaa heer nabigu wuxuu gaarsiiyay ninka weerarka ee cirdiga ku socda in la dili karo laga takhalusi karay nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxa ka sugan saacad ninka la yiraahdo saxaabada kamid raggoodii odayaasha ayaa wuxuu yiri ilaahay baan ku dhaartay haddaan xaaskayga agteeda nin ku arko nin xumaan ku sameeyay seeftan kurka kaga goynaya buri waliba dhinac ugu dhufan maayo afkeedan ku dhufan waa ka takhalusaya warkii nooca ah nabigu gaaray sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxa rasuulku yiri saacad baa sidaa leh ninkii naagtiisa u dhawaadiya xaaskiisa inuu qoorta ka goynayo sheegay markaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waxa la yaabantihiin masayrka iyo qayrada saacad miyaad la yaabantihiin ilaahay baan ku dhaartay anaa ka qiiro badan anigana ilaahay baa iga qiiro badan sidaas daraadeed buu alla wuxuu u xarimay fawaahishta dunuubta fooshaxun zinada iyo liwaadka iyo wixii lamida ayuu ilaahay sidaa darteed u xarimay teeda muuqatiya taqarsoonba ummaddu waa inay marka qiiro leedahay waa inay danqasho leedahay waa inay ka xajiimooto dumarkeeda in lagu xadgudbo وإلا waxaan noqonaynaa dayuusin sida nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam ninka ehelkiisa xumaanta lagu sameeyo raaliga ka awaa dayuuthna jannada ma gala buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waa waajib sharciya umada wada saaran way
odaygeeda siyaasigeeda culimadeeda dawladdiisa raciyadeeda waajib saaran waay inay cirdiga iyo sharafka la ilaaliyo sida naftaba in loo ilaaliyo ay u tahay dhiigga in loo aqliga in loo ilaaliyo ay u tahay maalka sida loo xifdinayo si ka badan waa in cirdiga iyo sharafka loo ilaaliyo waay su'aashu waxay tahay marka munkaraadkan iyo jaraa'imtan soo noqnoqday sidee lagu afjari karayaa waxaa lagu afjari karayaa sidii ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo rasuulkii sallallahu alayhi wasallam ay ku taliyeen in la qaato oo maxay ah kow wa in da'yarta la tarbiyeeyo tarbiyo wanaagsan la tarbiyeeyo wiilasha iyo gabdhaha waa in lagu tarbiyeeyo dhowrsoonaan waa in lagu tarbiyeeyo dadka inay ixtiraamaan waa in lagu tarbiyeeyo inayna ku xadgudbin dadka kale waa inay lagu tarbiyeeyo waxa uu ku samaynayo gabadha dadka kale in macnaheedu ay tahay gabadhiisii iyo walaashii oo kaleeto wax lagu samaynayo nabigeenna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wiil dhalinyaro u yimid wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay ow iidan lii fi zina zinada iidan ii fasax inaan zinaysto rasuulkii ilaahay wiil dhalinyaro oo shahwa hayso ii fasax aan zinayste nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam hooyada ma la jeceshaa in laga zinaysto maya buu yidhi walaashaa ma la jeceshaa in laga zinaysto maya eedadaa ma la jeceshahay maya habaryartaa ma la rabtaa maya dee kuwan aad doonayso inaad ka zinaysataba rag baa la dhashay oo rag bay dhaleen oo eedooyin u yihiin oo habaryaro u yihiin oo hooyooyin u yihiin markaasuu nebigu sal alla alay wasalam uu yeedhay laabtuu gacanta ka saaray waana u duceeyey in ilaahay qalbigiisa daahiriyo wiilkii yaraa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh tarbiya jamiila jiddan yaa carruurta iyo da'yarta in lagu tarbiyeeyo inayna xadgudbin wiilasha waxaa samaynaya dhaqanka ku kacayaa shaki ma laha waalidkood baa dayacay tarbiyadooda haddii waalidkii iyo mas-uuliyiintu tarbiyada ay dayacaan iyo carruurta barbaarintooda wanaagga lagu barbaariyana xayawaankaasoo kalea noo koraya yaa yaydaa dad cunkaoo kalea mujtamaca ku dhex barbaaraya oo aan naxariis lahayn oo aan insaaniye lahayn oo aan daqansho lahayn oo wax alla waxay kala garanayaan aan jirin baa mujtamaca ku dhex barbaaraya laanna tarbiyadii baa luntay ibni aadamkana asal waxa waa jahliga iyo dulmiga asal waa sida qur-aanka kariimku inoo sheegay waa in marka la tarbiyeeyo carruurta qodobka labaadi wax weeyaan in nolosha muslimiinta lagu soo celiyo sharciga ilaahay tabaaraka wa tacaala in lagu dabaqo lagu soo celiyo xuduudda ilaahayna lagu oofiyo dadka jaraa'imta iyo dembiyada galaya allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi qisaasta ruuxii wax dilay in la dilo ruuxii wax dhaawacay in la dhaawaco ruuxii dhibka geystay in la-eg in loo geysto qisaasta waxaa idinku sugan nolol baa idinku sugan mujtamaciyow bulshadiiyey qisaasta nolol baa idinku sugan noloshu maxay tahay bimacnaa waxa weeye kii wax dilahayay waa noolaanayaa hadduu og yahay hadduu wax dilo in la dilayo dilkii waa ka baaqsanayaa isagii waa noolaanayaa waa badbaadayaa dadkuu dili lahaana way badbaadayaane uu ku socdo iyaguna way badbaadayaan mujtamaciina waa badbaadayaayoo istiqraar iyo nabadgelyo xasilooni buu helayaa war qisaasta nolol baa idinku sugan kuwii caqliga lahaayow yaase fahmi kara waaya soomaalidu waxay yidhaahdaan ninna dhiiggiisa kama tillaabsado hadduu og yahay wiilkan yarkee faasidkee shuduudku ku dhacay tilaabadaa hadduu qaado inuusan ka dambaynaynin hadduu og yahay 100 xisaabood buu kala jarayaayoo isu geynayaa intuusan ku tilaabsan laakiin hadduu og yahay waxa hadduu sameeyo maalmo in la xidhi kadibna la sii dayn odayaalka qabiilku inuu u ergoon doono la sii dayn doono inuu fakan doono hadduu og yahay asaguna wuu samayn in ka dambaysana way ku dayan doonaan noloshiya istiqraarkiiyo nabadgelyadu waa fasaadaysaa yaa ulil albaabi intii caqliga lahaydo intii gaalo raacday maaha munaafiqiinta maaha inta fahamkoodii iyo caqligoodu meeshii ilaahay rabay gaadhi waayey maaha yaa ulil albaabi inta garashada lahow
warqisaasta waxaa idinku sugan iyo xuduudda ilaahay inaad oofisaan nolol baa idinku sugan istiqraar iyo xasilooni baa idinku sugan inaad nabad gashaan oo ehelkiinu idin nabad galo oo xoolihiinu nabad galaan oo naftiinu nabad gasho oo dhiiggan daadanaya istaago oo dumarkan la kufsanaya uu istaago oo uu dhammaado soo afjarmo walakum fil qisaasi xayaatun halkaasay ku jirtaa ma aha nidaam gaala noo keentay ma aha ma aha bini aadam wuxuu malmaluuqay ma aha ma aha xeer jajab odayaal dajiyeen ma aha walakum fil qisaasi xayaat sharciga ilaahay way tabaaraka wa tacaala saas daraaddeed baa nabigeenu sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu leeyahay xad hal xad ah oo ilaahay xuduudiisa ka mid ah oo naf lagu ilaalinayo diin lagu ilaalinayo caqliga lagu ilaalinayo cirdigii sharafka lagu ilaalinayo xoolaha lagu ilaalinayo xad dhulka ilaahay lagu istaajiyo ayaa dadka dhulka ku nool uga khayr badan 40 subxood inay roob helaan 40 subxood 40 maalmood oo isku xigta inaynu roob helno soo barwaaqo ma barwaaqadaasi waxa ka sito ka fiican oo wanaaga laga helayo ka badan yahay in dadka jaraa'imta iyo dambiyada galaya xuduudda ilaahay la mariyo xadka ilaahay la mariyo laana xadka isagana dambi dhaaf buu yahay al-xuduud kafaaraat ruuxa dambiga galana dambi dhaaf buu yahay ضحيدي دنبيغا laga galayna cadaalad bay u tahay mujtamaciina istiqraar iyo xasilooni bay u tahay laakiin yaa fahmi kara muslim ilaahay iyo rasuulkiisa wixii ka yimid garanaya fahmi kara gaal raac ma fahmi kara iyo wax qawaaniin bina aadan intay jidajisteen adoomada doona inay ku maamulaan walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun saas daraadeed hadii laga warwareego xuduudda ilaahay in la oofiyo dadka jaraa'imta galaya lagu oofiyo way sii siyaadi wayna sii kordhi boqolaan iyo kumayaalna way galaafan doontaa sidaana waa sida quraanka kariimka inoo sheegay waxa kamid ah sababta loo baahan yahay in laga arrimaha noocaas oo kale ah lagu la dagaalamo in ruuxa dhaalimka ee dambiga galay dambiinaha ah in aan la iska rabtaagin in aan loo doodin in aan loo shafiicin in aan loo ergeynin in xadka la mariyo nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay arrin la isku haysto ruuxii gardarna cidii garabsiisa oo u hiilis ilaahay cadadiisa ka zuuli maayo inuu ku dhex sugan yahay ilaa uu ka soo noqdo odayga garab taagan qabiilka garab taagan saaxiibka u ordaya kuwa dhaqaalaha ku bixinaya kuwa soo daynaya kuwa xugun ka khafiifinaya kuwa doonaya in ruuxi dibka loo geystayna dibku raaco daalibka dibka geystayna isagoo fayow inuu iska tago kuwa doonaya ilaahay cadadiisa ka zuuli maayaan ilaa ay arinta ka fuqaan oo ka tagaan saas daraadeed madluumka dhaxiyada gabadha yarta ah nafta la dilay dadka xuquuqda leh ayay tahay in la isgarab taago daalimka ma in la isgarab taago saas daraadeed halkaas oo kale markay marayso حدود مركو إلهي كهل تبارك وتعالى وحيد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله حدود مركو اللي أوفينا يا مصلحة كجرتي نحريسي يسان إذين قوانين كندم بيلها مجرم كا حد كمركو تكو أوفينا يسان نحريسيين إذين تابني مرسية حد إلهي بقى أغرنا إذين كان نحريس بل إلهي جي حد كان دجيي أيا أدو مديسة إذين كان نحريس بدن قالنا إنه أغمان نحريس بدن nin kamida madaxda muslimiinta u taliya waliba Soomaalida madaxda nin kamid ayaan maalin u tagnay aniga culimo kale waxa u xiran boqolaal ruux oo gacan ku dhiiglayaal ah oo dad laayay oo qirtay ama cadaymo loo helay baa u xidhan culimadii waxay u soo jeediyeen dilkiina waa socdaa qabaa'ishii waa islaynaysa dhiigii waa qubanaya culimadii waxay u soo jeediyeen war waxani ha istaagee intan aad hayse ay ku cadahayna xadka mariyo hal qisaaso nin alla ninkii ruux dilana qisaas oo ka takhallus oo xadka ilaahay mari saasa isagana u roon mujtamacna u roon wuxuu yiri ma taqaan kuwan hadan laayo hay'adihii gaalada qayliyo buuri ya waa xasuuq bay dhahayaan cadaadis baan soo fuuli طيب ummadda maslaxadeeda miyaad hormarin mise gaalaad raali gelin billahi alayk xaakim muslim baata mujtamaca aad u talisay ahayd inaad mudnaan siiso nabadgeliyadooda iyo istiqraarkooda bedelka aad hay'ada gaala iyo gaala ku raali gelinayso
ilaahay xuduudiisana aad u cadilayso tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed daalimka inaan la isgarab taagin waxaa ka mida qodobada muhimka ah ee arrimaha noocan oo kaleeta lagaga hortagi karayo in meesha laga saaro ergada iyo shafaacada odayaasha qabaa'ishii ugaasida iyo salaatiinta iyo dadka wajiga leh maxaa yeelay xuduudda ilaahay shafaaca lama geliyo waqtigii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa dhacday haweenayd reer quraysheeda ayaa zinaysatay ayaa waxaan dhihi lahaa waxadday xoolay xadday odayaashii quraysheed ee gabadhu ka dhalatay waxay og yihiin arrintaasi nebiga hadday gaadho gabadhan in gacanta laga goyn doono markaasaa la tashado waxaa la yidhi war gabadha seen ku badbaadin gabadhu waa qurashiyad waa quraysh yaa waa reerihii carab ugu sharaf badnaa ma gabadh quraysheed baa maanta gacanta laga goyn war saynu ku badbaadinaa innagana ceeb inooga hadha waxaa la yidhi yaa kaloo nebiga ku dhiiran karoon usaamo ahayn nebigaa jeclaa sal alla alay wasalam mawlihiisana waa ah war yaa kaloo ku dhiiran kara usaamaha loo diro usaama nebigu u tegay sal alla alay wasalam markaasuu kala hadlay arrintii gabadha nebigu waa cadhooday sala allahu calayh waa xanaaq wuxuu yidhi usaamow maxad ilaahay xuduudiisa ka midaad erga ka tahay ood ka shafeecaysaa miyaa usaamow maxad ilaahay xuduudiisa ka midaad maanta usoo dhigatay inaad ka shafeecdo dadkii inaga horreeyey buu nebigu sal alla alay wasalam waxay ahaan jireen kooda tabarta yar ee daciifka ee wax u ergeeye aan lahayn iyo wax u hadla hadduu xad galo way ka oofin jireen way ku qaadi jireen xugum midka shariifta ee sharafta leh reerka ka dhashay magaca leh wasiirka ah madaxweynaha sheekha ah magaca leh ama reer magac leh ka dhashayda markuu galana way iska sii dayn jireen buu nebigu sal alla alay wasalam ilaahay baan ku dhaartaye faadimadan aan dhalaye gabadhayda hadday xaddo gacantan ka jari buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh gabarh ka sharaf badan miyaa ku jirta carab iyo quraysh iyo aadamaha nebi maxamed baa dhalay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waana inta dumarka jannada galaya sayidadoodii wey siduu nebigu sheegay sal alla alay wasalam haayuu nebigu usoo qabsada hadday xadi lahayd ma xadayso xaashaa inay xaddo hadday xadi lahayd gacantaan ka goyn laha buu nebigu sal alla alay wasalam odayaasha waxaan leeyahay ruclaynaya ee suxul duubaya ee ordaya ee jaraa'imta dadka galay difaacaya allah idin abuurtay ka baqa dadka la dulmiyee lagu xadgudbay u hiiliya daalimka idinka dhashay ee dulmiga geliya xadgudubka samaynaya beddelkaad u shafeecaysaan u ordaysaan ood xabsiyada ka soo daynaysaan xukunka ka khafiifinaysaan qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay axibatii fillah inta badan waxyaalaha noocana waxaa keena dhallinyaradeenii iyo da'yarteennii macallimiin baas baa haysata facebook baa haysta filimo ajnabi ah waxaa haysta muxuu ahaayey warbaahintaa haysata carruurtii iyagoon tarbiyo lahayn bay meel baas wax ka qaadanayaan filimada inta badan waxlaynta iyo burburinta iyo dumarka sida loogu xadgudbo iyo sida loo geliyo social mediaha bay baranayaan halkaasay aafadu ka socotaa qaar ka mida khamray cabbayaan qaar ka mida daroogiyo qaad bay cunayaan qaar ka mida qashinkaasay baranayaan ayagoon miyir lahayn bay gabdhihii ku dhaqaaqayaan carruurtii yaryarkaabay kufsanayaan carruurtii yaryarkaabay dilayaan lianna waxa weye miyir ma joogo balaayay barteen qashin bay barteen sidaas daraaddeed waxay u baahantay waxyaalaha noocaasa wada jir in loola dagaalamo qaadkaa kowka ah qaadkan laga ganacsanayo xoolaheenniina dhammeeyey gabdhaheennii cirdigoodiina ku xadgudbay dhallinyarteenniina halkaa dhigay ummadaha kalena xoolaha milyanada ay ka samaynayaan ayaa kowka ah waxaa sidaa u gelaya dhallinyaradeenna haddii qaadkii la fasaxo oo khamradii la fasaxo oo mukhadiraadkii la fasaxo oo qashinkii dhallinyarada la baro tarbiyo wanaagsanna horay aysan u jirin soo waxaasoo kale inay yimaadaan maaha mas-uuliyiinta madaxda andimada culimada odayaasha cid kasta oo mas-uula waxaa waajib ku ah sidii loola dagaalami lahaa waxyaalaha dhallinyarada fasaadinaya lianna waxa weye waa hariib waana wax la yaab leh waa waxaana horay u jiri jirin war ninkan kadaata shahwa hadday ku hayso balaayo allah kugu ridaya war shahwa hadday ku hayso mid kula eg ama kaa weyn oo xumaanta aad doonayso kula ogol baabad heli kartaaye gabadha 10 jirka maxaa kuu geeyey ee waxba aan xamili karaynba maxaad ka doonto maxaad ka raadsan shaki ma laha filim buu arkay shaki ma laha gaaluu ku arkay lianna gaalada qaad waxaa jira shuduudkaa qaba qaar waxaa jira shuduudkaa qaba oo jiran wadaadada kaniisadaha qaar baa qaba shuduudkaa oo jiran oo naagta la-eg uguma baxdo taweyn uguma baxdo ilmaha yarkee 3 jirka qaar bay ugu baxdaa
qaar bay 5 jirka ugu baxdaa qaar bay 10 jirka ugu baxdaa shuduudkii nooca ahaba ummadan soo galay sidaas daraadeed waxay u baahan tahay waqfa waahida tilaaba adag iyo qaraar adag iyo go'aan adag oo la fuliyo oo ilaahay shariicadiisa waafaqsan oo lagu soo afjari kara waxa kale waad ciyaaraysaan dhiigna waa jooji weydeen qashinna waa jooji weydeen gaala nidaamkeeda intaad soo ergisateen oo wax ka samayseenna waa joojin kari weydeen Mareykan baa joojin la oo reer galbeed baa joojin la oo caalamkii baa joojin la oo maalin walba riboodiyada taqriirka soo baxaya wixii siyaadaya nidaamkay dejiyeen baa yeelaya ka ilaahay baa tabaaraka wa tacaala waxaliya gaal nidaam ka yimidna marna waxalin maayo dhiigna joojin maayo fuxshi iyo zino iyo iqtisaab iyo dumar la kufsadana joojin maayo sharciga ilaahay qaat صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك